kulanti wacan wanaagsan dawada dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii xog ogaal aad kala socoteen page youtube-ka caasimada channel waxaa idiin soo jeedaan anigoo ah warar dhammaan taariikhdan waxay ku beegan tahay 2 bisha 4 2020 qodobada ku maqli doonta waxaa kamid ah degdeg gabar qarax ismiidaamin ah ku leysay 30 askari in ka badan oo xogteeda laga war helay sidoo kale inta barnaamijkeena socdo waxaad ku maqli doontaan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa maanta lagu calaamad saaray Suldaan Cali Jaamac Galaal qodobadaas iyo qodobo kale xiisaad ku maqli doontaan socdo barnaamijkeena xog ogaal imika ku soo dhawaada si faahfaahsan magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer waxaa maanta lagu calaamad saaray Suldaan Cali Jaamac Galaal waa goob loo diyaariyey caleemasaarka Suldaan Cali Jaamac Galaal oo ku soo biiray salaadiinta Somaliland. agabka hidaha iyo dhaqanka ayaa goobtan lagu soo diyaariyey, farduhuna waa kuwa ku gaaf wareegaya halkan waa howlka kaafiga ee magaalada Burco oo ay ka dhacayso munaasabadda caleemasaarku. salaadiin tiro badan oo ka kala yimid deegaanada Soomaalida ayaa munaasabadani ka soo qayb galay. sidoo kale waxay goobtani kulmisay siyaasiyiin, aqoon-yahano iyo haldoor tiro badan. daafurka munaasabadda caleemasaarka suldaanka ayaa waxaa si qoto dheer uga hadlay ambassador Maxamuud Aadan Jaamac Galaal, wasiir doorihii hore ee wasaaradda caafimaadka, isagoo ka warramay taariikhdii iyo sidoo kale waayihii nololeed ee suldaanka. aad baan u soo koobaya Suldaan Cali Jaamac Galaal balli mareer buu ku dhashay hawdkeena, wuxuu ku soo ababay nolosha reer guuraaga ee xoolo dhaqatada, halkaasuu ku barbaaray ilaa 20 jirkiisii ama dhowriye 20 jirkiisii noloshaasuu ku noolaa. geelu caynabadaasuu geela ka waraabin jiray, biyo culusta Maxamuud Xaashi sheego iyuu halkaasuu ka hawlgeli jiray. markii dambe waxa uu reerkii qabteen xamar buu iskuul ka galay. wuxuu ahaa runtii ciyaartoogii qarankii hore la oran jiray Soomaaliya, juniorkii heer qaran iyo kubadda basketballka kolayga iyaa lagu qaatay. halkaasuu tacliintii aasaasiga ahayd xamar xilligaas. markii dambena reerku waxa ay u guureen Masqat iyo Cumaan, markii hore Salaala. Cumaan halkaasuu accountingka iyo bankingka ka bartay. waxa uu ka shaqeeyay markii hore bankii dhexe Central Bank of Cumaan, banker buu noqday. wuxuu dabadeedna u wareegay commercial bank. waa nin aamina oo dul badan. xilligii ugu dambeysay intaanu retirement-ka qaadan wuxuu ka shaqaynayay commercial bank. madaxda saruu ka mid ahaa. waxaa hoos imanayay maaliyad ama budget 250 bilyan. waa ninka ay nimanka Carbeed ee shisheeyuhu ku aamineen. marka sidaa daraadeed iyaanu Suldaan Cali u soo dooranay. salaadiintii iyo madax dhaqameedkii kala duwanaa ee munaasabadaasi ka soo qayb galay oo hadalka qaatay ayaa soo dhaweeyay suldaankan cusub, waxayna sheegeen inay xilligan ku habbooneen soo beeristiisu. waxaan leenahay suldaanow soo dhawow. waa nin ka tagay ninka intuu 20 jir mii ka yimid haddana magaalo dhan qabsaday. suldaanka Cali Jaamac Galaal waa tahniyadeynayna. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ku weydiinaya adiga annagaba ilaahay inuu xilka ku fudeeyo. xilka lagu dhiibana waa kugu hambalyeynaya. nin kastoo suldaanow ama adigu iscaleemasta ama reerku ha ku soo xulo, mar haddii magacu kugu baxay siyaasiga hadduu in adeerka yahay hadduu abtiga yahay ka madax bannaanaada. waxaan ilaahay kaaga baryayaa inuu karaamo ku siiyo oo ducadaada la aqbalo. suldaan waxaan ku leeyahay reer Galaal ha noqdee dadka wixii wax garanayo wax isku diin kaan waxba garanay waad ka dhaqaaqaysaa. waxaan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa inuu suldaanka u fududeeyo hawsha loo igmaday. ilaahay wixii dhibaheesh ama sharahe ka soo wajahayaan aakhiriya adduunka waxa ka ilaaliyo. aad iyo aad ugu soo dhawow golaal dhaqanka. waxa dardaaranada ka mid ahaa reerku talada uu gaadho adiguna u guddoomi baa ka mid ahay. waa la shaqaynaynaa, waa gacan qabanaynaa, taladan wada yeelanaynaa. halkaasay idinkaga dhan tahay. midna waa ka dardaarmayaayo waan wax dambe ka daba keenina.
suldaan cali waxaan leeyahay alla gudow maxaa hawla ku sugaya ragga iminka joogaa raggii hore maaha waxaan leeyahay dul badnow oo deeq badnow oo cadaalad badnow ducuun baa raacinaya ilaahow nabad iyo naxariis baanu kaa barin ilaahayow rabbigayow xanuunkaa la sheegayana ilaahow naga nabadgeli meel haddii laysku caleema saarayo waa lagu soo talagal caleentaada waxaan leeyahay suldaano mood dadkii jira allah kaa yeelo ee dadkiisa iyo dalkiisa daacad u noqdo waa reer weligoodu hogaamin jiray waa reer xagga hooye iyo xagga aabba wax ka hogaamin jiray waa reerka aynu garanayno ee aqoonta maadiga iyo ta diiniga iyo ta dhaqanka intaba hogaamin jiray weeye annaguna sida uu garaadku sheegay deegaankaa soomaalida ay Itoobiya ku yaala ama Soomaali galbeed ayaanu kugu soo dhaweynaynaa siyaasiyiintii kala duwanaa ee munaasabadaasi ka soo qayb galay oo iyaguna dhankooda halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay suldaankan cusub inaan taaniyadeeyo suldaanka cusub ee beesha Samana Bokor ay caleema saarayso halkan ku wada caleema saarayno suldaan cali jaamac galaal adeegahay adeegsiiwanahay adeeg caawadahay adeeg cadaaladahay iyo adeeg wanaagii bulshada loo socday waxaa lagu sheegay oo dhan akhlaaq cilmi mudadayinimo deeqsinimo intoo dhan waa leeyahay uga baqi maayo beesha Samana Bokorna wixii loo oran lahaana suldaan Cabdilaahi suldaan Cali iyo salaadiintii kala ayaa iyadana tiri marka waxaan jeclahay insha Allah taala inuu wadadii salaadiintii hore mari doono oo danta reer Soomaaliland iyo danta raaskiisa iyo reerkiisa ka shaqeyn doono ugu dambeyntina waxa halkaasi lagu calaamad saaray suldaan cali jaamac galaal suldaanka oo khudbad kooban halkaasi ka jeediyay ayaa u mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaadatay caana shubkiisa oo ku hadlaya magacayga iyo magaca beesha Samana Bokor waxaan halkan uga mahad celinayaa salaadiinta iyo garaadada iyo madaxda dawladda iyo madaxda xisbiyada suldaan cali jaamac galaal balli mareer buu ku dhashay hawdkeena wuxuu ku soo ababay nolosha reer guuraaga ee xoolo dhaqatada halkaasuu ku barbaaray ilaa 20 jirkiisii ama dhowriye 20 jirkiisii noloshaasuu ku noolaa geelu aynabadaasuu geela ka waraabin jiray biyo culusta maxamuud xaashi sheego iyuu halkaasuu ka hawlgeli jiray markii dambe waxa uu reerkii qabteen xamar buu iskuul ka galay wuxuu ahaa runtii ciyaartoogii qarankii hore la oran jiray Soomaaliya juniorkii heer qaran iyo kubadda basketballka kolayga iyaa lagu qaatay halkaasuu tacliintii aasaasiga ahayd xamar xilligaas markii dambena reerku waxa ay u guureen Masqat iyo Cumaan markii hore Salaala Cumaan halkaasuu accountingka iyo bankingka ka bartay waxa uu ka shaqeeyay markii hore bankii dhexe Central Bank of Oman banker buu noqday wuxuu dabadeedna u wareegay commercial bank waa nin aamina oo dul badan xilligii ugu dambeysay intaanu retirement ka qaadan wuxuu ka shaqeynayay commercial bank madaxda saruu ka mid ahaa waxa hoos imanayay maaliyad ama budget 250 bilyan waa ninka ay nimanka Carbeed ee shisheeyuhu ku aamineen marka sidaa daraadeed iyaanu suldaan cali u soo dooranay salaadiintii iyo madax dhaqameedkii kala duwanaa ee munaasabadaasi ka soo qayb galay oo hadalka qaatay ayaa soo dhaweeyay suldaankan cusub
waxayna sheegeen inay xilligan ku habbooneen soo biiristiisu. waxaan leenahay suldaanow soo dhawow waa nin ka tegay ninka intuu 20 jir mii ka yimid haddana magaalo dhan qabsaday suldaanka cali jaamac galaal way hadaag daawada dhegeystayaal waxaan guda jirnaa qaybo hore barnaamijkeena xogogaal imikana qodobka xiga waxaan noqonayaa ku dhawaad 30 askari oo ka tirsanaa ciidamada Turkiga ayaa lagu dilay weerar ay fuliyeen maleeshiyaadka Kurdiyiinta ee PKK kadib qarax ismiidaamin loo adeegsaday weerarkan ayaa waxaa fulisay gabar lagu magacaabay Sema Kocher da'deeduna ay ahayd 25 sano jir ayaana isku qarxisay aag ay kaga sugnaayeen ciidamada Turkiga gobolka Agri si gaar ah ciidamada la qarxiya ayaa ka howlgalaya meel u dhow xuduudda wadamada Turkiga iyo Iran ay wadaagaan wakaalada wararka ee ANF ayaa waxay sheegtay in abaara 5 aroornimo uu weerarka dhacay maalintii Talaadada ahayd balse maanta oo Khamiis ah ayay waxay PKK sheegtay in weerarkaas iyagu ka dambeeyeen Kurdiyiinta ayaa waxay sheegeen in dhaawacyo badan ciidamada soo gaareen 5 gaadiidka dagaalka ay Turkida la hayeen la burburiyay waa sida ay warka u dhigeen ilaa hadda ma jirto war ka soo baxay dhinaca dawladda Turkiga gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga oo ay kaga hadlayaan qaraxaasi ciidankooda lagu laayay waa tadawal dhageystayaal gudahaan waxaan soo barnaamijkii xogogaal aad kala socoteen page youtube-ka caasimada fadlan hadaa page ku cusub subscribe noo saar soo warbixinadan dambe oo la socotaan ma sanadeen